السلام عليكم magacayga Faaduma Maxamuud Maxamed marka koobaad waxa Ilaahay ayaa mahad iska leh oo maanta ii suura galiyay inaan wadankayga dib ugu soo laabto markii xigta waxaan u mahad celinayaa safiirka safaaradda Algeria Yuusuf Xasan Axmed Yuusuf Jeego oo qayb weyn ka qaatay safarkanaga asagoo la kaashanaya hay'adda caalamiga ah IOM intaas kadib anigu waxaan ka mid ahaa dhalinyaro 22 qof ah oo u kala safraysay badda Mediterranean-ka oo dhaxaysa Algeria iyo Spain waxaan baxnay 29 May maalin cabaar markaan soconay kadib waxaan nala gudoontay doonta halkaas ay ku geeriyoodeen dhammaan dhalinyaradii walaalahay ahaa aniguna aan 2 maalimood iyo habeen aan iska dhex sabeynayay badda intaas kadib waxa ay aragtay maalinkii saddexaad markay ii soo gali lahayd doonka luumaysato doontii ayaana soo badbaadisay oo ii keentay dawladda Algeria intaas kadibna mas'uuliyaddeeda waxa la soo wareegay safiirka safaaradda Algeria Yuusuf Jeego alxamdulillah rabbil caalamiin maanta aad baan ugu faraxsanahay inaan dalkayga dib ugu soo laabtay waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed kala talinayaa in aysan tahriibka aysan fududaysan tahriibku wax fudud ma ahan waa wax adag qof walba intuusan tahriibinin dadka hadda maqan iyo dadka hadda niyadda ku hayaba waxaan kala talinayaa inay inta aysan bixin ka hor ay gartaan qiimaha naftooda tahriibku markii aad baxaysid waa lagu fududaynayaa laakiin markii aad gudaha u gashid waxa ogaanaysaa xaqiiqada waxaan kale u tacsiinayaa dhammaan dhalinyaradii saaxiibaday ahaa oo maanta nasiibka anigu aan yeeshay aan yeelanin oo halka ku geeriyooday waalidiintooda waxaan leeyahay samiri iimaan Allah idinka siiyo hooyooyin iyo aabooyin iyo dhammaan asxaabtoodaba